بسم الله الرحمن الرحيم. أرضي دقيقة تدوكسي جيل الجديد كارهان فصلة اللباد ويلالية قبل واحد نكون سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت هاي تاريخ وتهاي صدح ذي بشي لحال لبكون يلا بعتن مادة الصومالي فصل كلباد واحد ورجعنا دون 10 كمكة 10 كان و10 كينو السعودي قيب بين كسر دقني أنتي نهر سنة دي الله يرزقك يا نسرعين إن هدي الله يرهضه dhageysi haboon waa magaalada muslimiinta dunida oo dhan ay ku kulmaan waqtiga xajka ee sanad walba waa magaalo qof walba oo muslim ahi jecel yahay inuu tago waajibna ay ku tahay waa magaalo oo ku dhex yaal masjidka xaramku hal salaad oo aad ku tukato ayaa u dhiganta 100,000 oo salaadood waa magaaladii uu nabigu ku yiri haddii aysan dadkaygu iga ka saari lahayn kama baxeen arday 10 kan waxaynu ku baranay waxyaabo badan oo ku saabsan magaalada Makka ugu horeyn waxaynu baranay magaalada Makka 10 ka hor waxaynu ku soo baranay inay tahay magaalada uu ku yaalo ceelka Samsam waxaynu halkan ku baranaynaa magaalada Makka inay tahay magaalada uu ku yaalo magaalada sanad walba ay muslimiintu ku kulmaan waqtiga xajka waxa kale in ogaanay magaalada Makka inay magaalooyinka kale in magaalada Makka masaajidka xarameynka ee ku yaala ama masjidka xaramku kabcaduna ay ku taalaa inuu yahay masaajid ka fadli badan salaada lagu tukada salaadaha masaajidada kale lagu tukada inay ka fadli badan tahay ayaynu ogaanay oo waxaynu ogaanay halka salaad ee lagu tukado masjidka xaramku in masaajidada kale salaada lagu tukada ay dheer tahay 100,000 oo darajo waxaynu ogaanay inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam magaalada Makka kama baxeen hadayna dadkaygu iga saari lahayn dabcan marka nabiga laga saaray Makka waxa weeyaan markii uu ka soo hijrooday waana kii tagay markii uu Makka ka hijrooday magaalada Madiina waxyaabahaas inuu ka ogaanay magaalada Makka waa magaalo waxyaabo badan oo mucjisa leh haddaynu u gudubno 10 intaas inoogu dhamaaday layliska waxaan jeedaa buugaaga daftarka aad 10rada ku qorato ayaanad 10ka marka dhageysato ee fahamtaad ku wareejin doontaa qoraal ahaan ayaad ugu wareejin doontaa haddii la yiraahdo inta markaad samayso layliskan ayaad isagana qori doontaa waad ka soo shaqeyn doontaa luuqaygana waad igu soo diri su'aasha koobaad waxa la yiri nabigu xaguu ku dhashay su'aasha labaad Makki wadankee ayay ku taalaa su'aasha saddexaad maxay muslimiintu Makka u tagaan sanad walba marbay tagaan sababtay u tagaan marka laga doonayo su'aasha afraad maxaad u jeceshahay Makka waayahay intaas ayuu 10keenu ku kooban yahay maanta ka soo shaqeeya haddii la yiraahdo layliskaas والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.